saddexan maxamed cabdikariin xirsi ku magac dheer khayaalidii وهاجاج محمد بل سوشيال ميديا قبيسة كلا جديسان وحوريجي runtii arrin aad runtii looga xumaado oo dadka Soomaaliyeed aad ay uga xumaadeen oo muujinaysa saddex wiil oo gabar arrin aad u xun u geysanaya oo kufsiya bal arrintaasi bal faahfaahin naga sii goormee dhacday maxaase ka taqaanaa raggaas waxayna ka dhacday guldogob meel la yiraahdo duleedkeeda marka waxa arrintan geystay dhalinyaro Soomaaliyeed oo maaragtay aad dad u daayir ah waxay u dhaceen qaab adugu iska dad waxay ahaayeen social media iyo waxa sawiradan iyo fahamsaneen waxayna sameeyeen sawiro iyo waxyaabo ku safaadeen iska qaadeen marka dadka Soomaaliyeed social media isticmaalay waxaan ka codsanayaa arrintan gabi ahaan waa la dhameeyay oo macnaha dad isu xigay baa arrinta xaliyay oo ka wada fariistay waxaan kaloo ay sameeyeen gabadhi xataa barnaamijkeeda waa la xaliyay hadda barnaamijkaas maamulka xataa intuu gacan la soo galay baa waxa la yiri barnaamij waa ku filanahay annaga dhameynayno magarat وهاجاج maamulka Puntland maamulka Puntland baa la yiri annaga ku filan oo dhameynayno sidaasaan lagu kala dhameeyay arrintii haddana waa la xaliyay wax dhibaato ma jiraan dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa waxaan ay baraha bulshada ku wadaan inay toojiyaan nin jecel ma laha qof walaashiisa oo dhibaato loo geystay in baraha bulshada la soo dhigo gabadha ehel dhawaatihiin adiga aniga gabadha ehel baan nahay dadkii maaragtay dad iga xigana way jiraan balse ehel baan nahay oo dad waxaan nahay maaragtay xigta وهاجاج wararka waxay sheegayaan in ragga falkaasi geystay ay arrintan xogta ku heleeno halka ay galdogob naga soo gaaraya inay mid kamid ah raggaasi oo nin suldaan ah uu wax u yahay mid kamid ahna xildhibaan uu wax u yahay biskooladahaasna ay wataan oo badanaan ay gabdhaha ay handadaan bal arrimahaasi maxaa wax nooga sheegi kartaa qiyaaladid walaal horta haddaan kuu sheego horta magaalada meesha arrinta ay ka dhacday magaalo hub la qaato ma aha magaalo waxa weeye hub aan lagu aqoon oo magaalo nabdeed ah sidoo kale dhalinyaro gaartay oo ma aha in ay maaragtay hub qaataan barnaamijkan qaab wuxuu u dhacay maaragtay waa taqaanaa dhalinyaro aad u yar weeye qaab wuxuu u dhacay gabdho oo maaragtay inta la soo kaxeeyey oo kaleeto macnaha la xoogay oo kale qaabkaas kale u dhacay wax hub ah oo la isu qaatay ma jiraan xildhibaanka iyo dadka kale oo mas'uuliyiinta ah sheegaysita iyaguna maba dad kale fogba ma aha dadka hawsha dhex martay ma garan وهاجاج falkan ma falkii ugu horeeya oo ka dhacay deegaanka waa falkii ugu horeeyay oo deegaanka ka dhacay walow dadku ay kufsiyada Soomaaliya waa iska jiri jireen balse wax nacaan oo kale oo sawiro muuqdo watan waa wixii ugu horeeyay bay macnaha u maleynayaan sidaan أنا ما وضع عرق سياسة أنا قرأت أنا ما أعرف أو مقال وطن قرأت. وهاجاك هذا كأجو وحنا قرأت إن أرنت الحلية أو وليش أي مجالات إسكورية جيان قبل حال كذي كورن. أرنت ويلي أرت مجالات إني وريجي يعني قوم حد يتشين كرو أيه والله هي أنا وجا باشا قبل أرنت أي كده دعوي وأنا ما أعرف أرنت عن حل كذا قاضي أو أيه جاي اسكت الشباب أو أنا جاي شويتني له dadka Soomaaliyeed baraha bulshada soo dhigay waxaan ka codsanayaa in maaragtay waxaan si fiican uga taxadaraan boob mar hore taldeey bay damqinayaan dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay dhamaantood barnaamijkan joojiyaan ay baraha bulshada ku faafinayaan aad baad u mahadsan tahay qiyaaladid وهاجاج wararka waxay sheegayaan in ragga falkaasi geystay ay arrintan xogta ku heleeno halka ay galdogob naga soo gaaraya inay mid kamid ah raggaasi oo nin suldaan ah uu wax u yahay mid kamid ahna xildhibaan uu wax u yahay biskooladahaasna ay wataan oo badanaan ay gabdhaha ay handadaan bal arrimahaasi maxaa wax nooga sheegi kartaa qiyaaladid walaal horta haddaan kuu sheego horta magaalada meesha arrinta ay ka dhacday magaalo hub la qaato ma aha
magaalo waxa weeye hub aan lagu aqoon oo magaalo nabdeed ah sidoo kale dhalinyaro gaartay oo ma aha in ay maaragtay waa la haliyay hadda barnaamijkaas maamulka xataa intuu gacan la soo galay baa waxaa la yidhi barnaamij waa ku filanahay annagaa dhammeynayno ma garat waa hagaag maamulka puntland baa la yidhi annagaa ku filan oo dhammeynayno sidaasaana lagu kala dhameeyey arrintii haddana waa la haliyey wax dhibaataa ma jiraan dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa waxaan ay baraha bulshada ku wadaan inay joojiyaan nin jecel ma laha qof walaashiisa oo dhibaato loo geystay in baraha bulshada lasoo dhigo gabadha ehel dhowaad tihiin aniga gabadha ehel baan nahay dadkii maaragtay dad iga xigana way jiraan balse ehel baan nahay oo dad waxaan nahay maaragtay xigtaa 20 beri kusoo wareegtay waxayna ka dhacday galdogob meel la yidhaahdo duleefteeda marka waxaa arrintan geystay dhalinyaro soomaaliyeed oo maaragtay aad dad u da'yar ah waxay u dhaceen qaab adigu iska dad waxay ahaayeen social media iyo waxaa sawiradan iyo aan fahamsaneen waxayna sameeyeen sawiro iyo waxyaabay ku safaadeen ay iska qaadeen marka dadka soomaaliyeed social media isticmaalaya waxaan ka codsanayaa arrintan gebi ahaan waa la dhameeyey oo macnaha dad isu xigay baa arrinta haliyey oo ka wada fariistay waxaa kaloo ay sameeyeen gabadhi xataa barnaamij ay ku qaataan barnaamijkan qaab wuxuu u dhacay maaragtay waa taqaanaa dhalinyaro aad u yaryar weeye qaab wuxuu u dhacay gabadha oo maaragtay inta lasoo kaxeeyey oo kaleeto macnaha la xoogay oo kale qaabkaas kale u dhacay wax hub ah oo la isu qaatay ma jiraan xildhibaanka iyo dadka kale oo mas-uuliyiinta ah sheegaysita iyaguna dee maba dad kale fogba ma aha dadka hawsha dhex martay ma garan waa hagaag falkan ma falkii ugu horeeya oo ka dhacay deegaanka waa falkii ugu horeeyey oo deegaanka ka dhacay walow dee dadku ay ofisiyada soomaaliya waa iska jiri jireen balse wax nacaan oo kale oo sawiro muuqdo magacii waa saddexan maxamed cabdikariim xirsi ku magac dheer khiyaanadii waa hagaag maxamed bal social mediaha qeybihiisa kala gedisan waxaa wareegaya runtii arrin aad runtii looga xumaado oo dadka soomaaliyeed aad ay uga xumaadeen oo muujinaysa 3 wiil oo gabar arrin aad u xun u geysanaya oo kufsiya bal arrintaasi bal faahfaahin naga sii goormee dhacday maxaase ka taqaanaa raggaas